hadlaa magaca dhalinyarada Jubbaland asatan gobolkeeda ahna gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolkeeda Yuusuf Maxamed Cabdi ama Yuusuf Iris waxaan ka hadlayaa mawduuca ah waxqabadka dhalinyarada gobolkeeda heer gobol iyo ilaa heer degmo ka shaqsi ahaan aniga Yuusuf ah waxaan soo maray gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Luuq awalan waxaa sharaf yeelay intaan ka soo shaqeynayay inaan waxna aan qabtay waxna aan ka tagay ayaa qabto waxay ugu horeysay markaan qabanayay xafiiska dhalinyarada xafiis ma lahayn xafiis dhalinyarada dhisay oo dhalinyarada degmada u dhisay meel fiican baan soo gaarsiiyay waxaan dhisay garoon sports dhalinyarada isku aadan oo nidaamsan ayaan ka dalacay oo aan aaday ama aan ka tagay xafiiska gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Luuq waxaan aaday gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Gedo waxaa sharaf ah intii ka dambeysay soo shaqeysay iyo inta hadda la doortay dhalinyarada gobolka Gedo joogto haddii tahay heer sports iyo heer dhalinyaro waxaa jeclaan lahaa maamulka gobolka Gedo oo u sareeya mudane Axmed Buule Gareed iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka inay dhalinyarada si sharaf leh sumcad leh horumar leh wanaag leh ee ula shaqeeyaan waxqabadka dhalinyarada maanta joogto ma hayaan shaqo ma hayaan lacag iyo u adeegaan baahida dhalinyarada ma haystaan horumar kale ama skills oo mana ay sheeg tababar ah ma haystaan dhiirigelin waxaan ka codsanay dhammaan maamulka gobolka Gedo u sareeyo barasaab gobolka Gedo iyo dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka dhalinyarada inay si qaas ah ula shaqeeyaan ay kala shaqeeyaan xagga baahidooda sports dhahay isdhexgal tahay waxaan ka codsanay degmooyinka dadweynaha degmada degmo isku keenan ee u furan league isdhexgal ah waxaan kala codsanay dhalinyarada gudoomiyaasha ururka dhalinyarooyinka inay isku imaadaan ay macnaha horumarka dhalinyarada ka shaqeeyaan degmooyinka horumar sameeyaan ee maalin walba ma fiicna in isku qabsado dhalinyarada isku qabsato ay dhalinyarada doorasho loo dhameen iyo doorasho looma dhamo iyo waa loo dhanyahay isku hayo waxaan codsanayaa maamulada degmooyinka dhalinyarada la joogto degmo kasta inay kalsoonidooda fiiriyaan ay u dhaxaan maxaa in dana maxaa in sharaf ah maxaa in horumar ah inay kala jeclaysi iyo fuqaaqa la kala geeyo dhalinyarada isku duwan xaafad walba loo kala yeero ayadoo isdhexgalkeeda buuxo kadib la dhaadinka soo doorto markaas kadib iska soo qabtaan qof ayaga baahidooda iyo macnaha horumarkooda iyo wanaagooda ka shaqeyn karo inay doortaan dhalinyarada ayaan codsanayaa anigoo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Gedo hadeerna ku maqan safar gaaban waxaan codsanayaa oo si sharaf loo codsan dhalinyarada inay ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada gobolka Gedo ay iska dhaafaan qabiilaadka waxyaabaha hoose ay danahooda iyo ayahooda ka shaqeeyaan shar waxay arkeen inay maanta arkeen wixii maanta hor yaala inay ka shaqeeyaan muhiimna ah wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh